Skilo wixii hore Manchester United oo xil ciyaareedkan ciyaarteedii ugu fiicneed soo bandhigtay, Chelsea oo lagu dhigay, iyo Liverpool oo guulaheedii sii wadato kadib markay guushii weyneed ee City ay ka gaartay ku xigtay guul kale oo 1-0 kaga badisay kooxda West Ham. Kusoo dhawaada falanqaynta kulamada xiisaha lahaay ee caawa la dheelay ee Premier League. Haddii ay tahay markii ugu horeyso channelka daawanaysid, channelkana subscribe ku saareen. haddii aad tahay qof ciyaaraha xiiseeya, channelkan waa channelkaaga, subscribe ka dhac kusi adigana igu dhiirigeli, adiguna hel wararkii iyo falanqaymihii ugu dambeeyay ee kooxdaada. Mahadsanid. Assalaamu calaykum saaxiibayaal, kusoo dhawaada falceynta kulamada xiisaha lahaa ee Premier League ee la ciyaaray. Sida la socotaanba kulamo xiiso leh ayaa caawa la dheelay. Waxaa dheelayay Chelsea, Liverpool iyo weliba Manchester United. Kulanka ugu xiisaha badan wuxuu ahaa kulanka u dhexeeyay kooxda Manchester United iyo Tottenham. Kulankaas 2-0 ayuu kusoo dhamaaday. Manchester United ayaana ciyaar aan caadi ahayn soo bandhigtay. balse intaana kulankaas iyo falanqayntiis u gelin oo ahaa kulanka ugu weyn ee isbuucan, waxaan ku hormaraynaa kulamada kale ee kooxda Chelsea oo Brentford la dheeshay iyo Liverpool oo West Ham la dheeshay. haddii aan ku hormarno Liverpool caaway badisay kadib guushiidii weyneed ee City isbuuc ka gaartay. Liverpool waxay u muuqataa inay wadadii guulaha kusoo laabatay iyadoo saddexdii game ugu dambeeyay oo isku xigta badisay markii la fiirsho koobka ay ciyaarto oo dhan oo Champions League uu ku jiro. kooxdii Liverpool ahayd oo sanadkan ognahay in ka jaban tahay, dhaawacyo badan iska haystaan, caawa haddana waa badisay kadib guushii aadka loo amaanay ee City ay kasoo hoyday isbuucii lasoo dhaafay. caawa West Ham gurigeeda ay kusoo dhaweysay, kulan adag waaye. West Ham waa koox dhibaan sida ognahay, inkastoo sanadkan aysan sanadii hore aysan lamid ahayn, xoogaa ka jaban tahay, haddana sanadkan ciyaarna badan lasoo seexatay, waa koox dhib badan. waxaa ognahay inay sanadkii hore Liverpool gurigeeda uga badisay si lamid ah. marka kulan adag caawa Liverpool dheshay, waxaa la yidhahdaa wayna badisay, 1-0 ciyaarta kusoo dhamaatay. kulan aad u dhow ahaayo Liverpool ciyaarta in laga bareejeeyo ay ku sigatay penalty xitaa oo Alisson qabtay. marka kulan xiiso badan oo ahay. Liverpool waa badisay, ninkii Nunes ahay ayaa gool dhaliyay, gool cajiib ah oo striker gool ah, strikerada goolasha lagu yaqaana oo madax simikaas usoo baaso ka dhaliyay. marka caawa haddana ninkii Alisson ahay oo ognahay inuu kulankii lasoo dhaafay goolkii oo Salah ka caawiyay ayaa caawa haddana bandhig caadi ah soo bandhigay markii uu penalty ka qabtay kooxda West Ham. Liverpool waa badisay, wadadii guulaha kusoo laabatay, inkastoo dhaawacyo badan iska jiraan ognahay oo ninkii Jota xitaa kulanka u dambeeyay ka dhaawacmay, haddana waxaa la yiraahdaa caawa way badisay oo guusheedii sii wata iyadoo kaalinta 7 hadda soo gashay. xoogaana u moodid in rajadooda si hore ka fiican tahay. marka macalin Klopp iyo kooxdiisa waxa waaye caawa clean sheet ay xarada kala baxeen. waxaa ognahay in difaac xumo badan ay haysato sanadkan, marka haddii ay clean sheet ka haysan karaan oo shabaqooda difaaca karaan, waxay u muuqataa inay gool dhali karaan oo goolalinta xitaa inkastoo ciyaaro badan ka maqan yihiin oo Jota iyo rag leh iyo Diaz iyo waryahanada badan ugu fiicnaa ay maqan yihiin, haddana inay rag gool dhali kara haystaan u muuqataa. Nunes iyo Firmino iyo Salah iyo rag ay weli joogaan, iyo fullback-geeda oo marna Simicas iyo Alexander-Arnold iyo raggaas ay joogaan oo goolal aysan Liverpool dib u qabin. marka Liverpool waa badisay, rajadeeduna waa soo fiicnaanaysaa. haddaan kulan kale ku xijino Chelsea ayada waa lagu dhagay caawo macalin Potter oo kulankiisii 6aad miyaa dheelayo, weli lagama badin, laakiin waxa waaye draw iyo caawa ciyaarta kusoo dhamaatay. waxaa ognahay in kulankii lasoo dhaafay xoogaa ay ciyaarta lagu adkeeyey la dheeleen kooxda macalin Gerrard ee Aston Villa, inkastoo 2-0 ciyaarta ku badiyeen. caawa waxa waaye ciyaar xoogaa aan saas u fiicnayn oo kulankaas oo kale ay soo bandhigeen, laakiin waxa waaye inay gool dhaliyaan ayay ku guul daraysteen. yarkii daayarka ahay oo Brocha ayuu macalinka caawa kusoo bilaabay, inkastoo Aubameyang gadaal laga keenay daqiiqadii 60aad meelahaas. Mason Mount oo isagana ninkii ahaay ugu hal abuurka badnaa kooxda ayuu baxshay. marka Chelsea inkastoo sidii macalinkan cusub uu shaqada ula wareegay ay u muuqdeen inay meel fiican u socdaan, goolo dhalinayeen, kulamaha waaweyn badiyeen, ilaa haddana sidii macalinkan uu shaqada ula wareegay aan laga badin. haddana marka qaar waxaad moodaa in culayskii xagga gool dhalinta ka haystay xilligii macalinkii hore uu joogay inuu weli ciladaas ay jirto. marka kulankii hadda lasoo dhaafo kale waxaan ogeyn labada gool dhaliyay, midna free kick uu ahaa, midna qalad ay difaacyada kooxda Aston Villa ay sameeyeen ayuu ahaa. marka kulankaana caawa si lamid ah inay gool dhaliyaan ayay ku guul daraysteen. Keba ayaana runtii dhibicdan caawa u keenaa dhihi karaa goolhaya Keba, bandhigyo aan caadi ahayn uu soo bandhigay kulamadii ugu dambeeyay, badbaadino aan caadi ahayn uu sameeyey kulankan iyo kulankii ka horreeyay oo Aston Villa ay ka badiyeen. ninkii Mendy inuu boos kala baxa ayuu egtahay. marka Chelsea hadda waxay ku jirtaa kaalinta 4aad iyadoo 1 dhibic ka koreedo Manchester United oo caawa ay badisay. United kulankii ku horeeyay draw gashay, Chelsea xoogaa waxay moodaa inay fursad ka qaadato, taasoo kulankeeda iyadoo badisay, haddana caawa sidaas la mid ah United waa badisay, Chelsea waa draw gashay. marka waa joog meesha joog, 1 dhibic ay ka koreysaa iyadoo 20 dhibcood haysata kaalinta 4aad ku jirta.
markaan haddaan fiirno kulankii ugu xiisaha badnaa ee Manchester United iyo Tottenham, United ayaa 2-0 ku garaacday kooxda Tottenham. United caawa waxaa la dhihi karaa waxay dheeshay kulankeedii ugu fiicnaa ee xilli ciyaareedkan, ama bandhigeedii ugu fiicnaa ayay soo bandhigtay. United ayaa caawana tustay waxa ay tahay macallin Ten Hag kubadiisa. United ayaa caawa waxay dheeshay kubadii lagu yaqaanay kooxda Ajax iyo macallin Ten Hag. kulankan kulan adag oo ahay. Tottenham saa ogtihiin waa kooxda maarata kaalinta labaad ku jirta oo City iyadoo isku dhibco ay yihiin, inkastoo hal game maaratay ay ka badan tahay kooxaha kale. haddana Tottenham oo kaalinta saddexaad ku jirta, kaalinta labaadna kooxda ku jirta isku dhibco yihiin, ayaa maaratay Old Trafford soo booqanaysay. kulankan waa kulan adag. United inkastoo hadda kulamadii ay kooxaha weyla dheeshay ilaa hadda oo Liverpool iyo Arsenal ay ka badisay, haddana kulankan caawa kulan maaratay kulamadii hore ka duwan ahaa. kulamadaas waxay United ku dheelaysay kubad counter attack iyo maaratay oo dhibcaha uu la fiirsanay ahayd, laakiin caawa United kulankan bandhiga caadi ahayn ay soo bandhigtay. goolasha Bruno Fernandes iyo Fred u dhaliyay. maxaa la yiraahdaa waxaa caawa lagu soo bilaabay Fred iyo Casemiro, labada nin Brazilianka qadka dhexe iskula soo bilaabay. bandhiga caadi ahayn ay soo bandhigeen. United runtii waxaad moodaa in macallin Ten Hag philosophy-giisa iyo qaabka uu rabo iyo maaratay kubadda style-ka uu dheelo inuu maaratay kulanba kulan ka dambeysa ay xoogaas sidii hore kasoo fiicnaanayso. markaan fiirino kubadda gadaal laga soo dhisaayo iyo maaratay positionka badan la haysanayo, ciyaarta dhan maaratay la maamulo, la dominate gareeyo, fursadaha la abuurayo. caawa 28 shoot ayay ku riday Tottenham kooxda Manchester United, iyadoo 10 maaratay kamid ah ay on target ahaayeen. United caawa 2 gool kaliya ayay dhalisay, laakiin waxaa la dhihi karaa ninkii Hugo Lloris ahay oo goalkeeper Tottenham ayaa iska diiday in halaas ka badan oo goolada Tottenham laga dhaliyo, laakiin United caawa waxay u qalantay in ay 5 iyo 6 ku badiso marka la fiirsho fursadaha ay abuurtay. United ciyaarnadeeda ayaa caawa soo bandhiga cajiib ah marka la fiirsho kubad haysashadeeda, kubad baasashadeeda iyo maaratay dhisidda kubadda. marka la fiirsho dhinaca laga soo dhisay difaaca iyo weerarka, iyo weliba dhanka difaacashada ninkii Lisandro Martinez ahaa ayaa caawa jeeb ku ritay Harry Kane. ninkii la yiraahdo Fran asagana kubad walba oo maaratay cirka ka imaanaysa uu ku guuleysanayaa. marka United runtii sanadkan inkastoo maaratay kufow iyo kacow iska jiro oo kulankii maaratay hadda xasuusano ay horyaal ku bilaabato Brentford iyo labadii kulan oo maaratay laga badiyay, iyo kulankii Manchester City oo 6 loo dhiibay. ma ahane inta ka soo hartay runtii United sanadkan waxay u muuqataa inay maaratay kor u socoto. marka la fiirsho trendingka meesha ay ku socoto iyo talaabooyinka ay qaadayso, waxaad moodaa inay kor u socoto oo macallin Ten Hag kooxdan oo maaratay isbedel weyn oo ku wado. in maaratay laga badiyo kulamada qaar wax iska caadiyo, koox walba ku dhacdaa. kooxaha waaweyn oo xoog galo Yurub xoog badan laga badiyaa. City oo kale inay ka badiso wax iska caadiya, laakiin runtii United kulamadii ay sanadihii lasoo dhaafay dhib ku qabtay inay dhibcaha ka qaadato ay sanadkan maaratay dhibcaha ka qaadanaysaa. United oo waxaan arki jirnay kulan walba maaratay especially kulamada kooxaha yarka ay la dheelayso dhib ku qabtay, iyo Tottenham iyo kulamadaas oo kale. waxaan ognahay in dhowr sano ka hor 6-1 ma ahayd mise 6-2 United uga badisay gurigeeda. marka United caawa bandhig cajiib ay soo bandhigtay. ninkii Fred ahay caawa la celi waayay, aday ku taalaa. Fred ahay xitaa kugu shidanaa marka United ay u shidantaa. marka waxa waaye kulankii la soo dhaafay United waa ogeen inay maaratay gool dhali weyso oo Newcastle la gashay. Fred oo asagana kulankaas lagu soo bilaabay bandhigiisu ma fiicneen. Fred saa ognahaba waa nin maaratay ii fadhiiso kubadda ii soo qabo oo maaratay weeraryahanada iyo qadka dhexe kooxda kale kasoo reeb soo dhiib ah ku fiican maahane hor u socoshada iyo kubad maaratay progressive passka kuma fiicno. laakiin caawa horumar weyn uu sameeyey marka kulamadii hore iyo awoodiisa la fiirsho. waxaa mooda caawa in macallinku la soo hadlay oo la yiri kubadda haddaa lugtaad ku qabatidba hore isaga dhiiba, hore wad kubadda geeskaagana hu baasin gadaalna hu baasin. marka caawa ninkii Casemiro iyo Fred lagu soo bilaabo qadka dhexe oo Brazilian connection marka bandhiga caadi ahayna soo bandhigeen. waxaa moodaa in hadda Scott McTominay oo dhib ku qabi doono inuu kooxda kusoo laabto. marka lagu qiimeeyo bandhiga ay caawa labada nin reer Brazil Fred iyo Casemiro soo bandhigeen, Casemiro isagana ciyaaran caadi ahayn ayuu dheelay soo kubadda ugu soo guuleysanayo maaratay, iyo sida maaratay kalsoonida uu siinayo ciyaaryahanada ka horeeya iyo juhdiga dadaalka uu bixinayo. world class waa Casemiro. wax nin maaratay waxaa la dhihi karaa waa ciyaaryahanka defensive midfielderka ugu fiican adduunka ayaa la dhihi karaa. marka sida uu ciyaaraha qaar u dheelayo aad aragtid. marka kaliya xitaa ma ahan inuu kubadda kusoo guuleysanayo oo maaratay uu difaac u yahay maaratay difaacyada kooxda, balse sidoo kale wuxuu maaratay caawa soo bandhigay inuu kubadda baasi karo. sidoo kubadda u baasayo baasaska maaratay oo weerarka kooxda dhisideeda uga qayb qaadanayo ayagana caadi maahan. caawa markii bedelka loo taagay taageerayaasha Manchester United waa wada istaageen oo socbiyeen. marka United caawa ciyaaran caadi ahayn dheeshay Bruno Fernandes oo asagana ka faa'iideysanaya in
laba nin oo maaragtay difaacashada aan caadi ku ahayn ay gadaashiisa taagan yihiin. caawa isagana wuxuu haystay space aan caadi ahayn, freedom aan caadi ahayn, haystay garoonka meel buu tagayay, gool uu dhaliyay. inkastoo waahii dambe maaragtay gool dhalintiisa iyo gool caawintiisu ay maaragtay hoos u dhacday, haddana caawa foomkiisa lagu yaqaanay Bruno Fernandes la yaqaanay ayaa caawa soo muuqday. Rashford oo isagana caawa weerarka lagu soo bilaabay, maaragtay inkastoo gool uusan dhalin, fursad aan caadi ahayn oo fara badan oo abuuray. ninkii Lloris ahaa maaragtay u diiday inuu gool dhaliyo maahan, caawa isagana 2 gool 3 gool inuu dhaliyo ahayd. Anthony sidoo kale ciyaar cajiib soo bandhigay, inkastoo gool dhalin, goolasha dhan maaragtay saameyn uu ku lahay, maaragtay aad u mashquuliyay ciyaarnada difaaca maaragtay Tottenham. Diego Dalot isagana sidoo kale, Luke Shaw oo aan ognahay inuu Tyrone Malacia oo maaragtay kala baxay booskaas, isagana ciyaar caadi ahayn soo bandhigay. marka hore aadista iyo difaacashada labadaba la yiraahdo si isugu miisaaman yihiin. marka caawa waxaan aragnay Manchester United oo Ten Hag dhisayo ayaa la arkay. macna Ten Hag waxyaalaha uu kooxdan maaragtay uu rabo inuu ka dhiso iyo meesha uu u wado, kulamada qaar markay aragtid maaragtay cabsiya ku galaysa. waxa uu maaragtay kubadda kooxda dheelayso baasaska David De Gea oo ognahay in kubadda markii lugtiisaba kubadda ku dhacdo inta qalqalo maaragtay inuu gool isagu iska dhaliyo ku siga jiray, ayaa hadda kubadda soo u baasaya la yaabay. marka macna Ten Hag isbedelka uu kooxda ku wado waa wax cajiib ah. 2-0 caawa ku badiyeen, kulankoodii saddexaad oo koox weyn ay la dheelayeen xil ciyaareedkan ay badiyaan, kaalinta shanaad ku jiraan, 1 dhibic ay ka hooseeyaan kooxda Chelsea, ayagoo 4 dhibcood oo kaliya u jiro kooxda horyaalka inay qaado loo saadaalinayo Manchester City. marka United top 4 maaragtay ay horta aimkeedu yahay. Tottenham waa kooxda ugu fudud top 4 kala bixi karta markii la fiirsho. fursadoodii ahayd inay top 4 Tottenham kala baxaan caawa maaragtay iskama qasaarin oo ka faa'iideysteen. Ronaldo oo kulankan benchiga la geliyay maaragtay bedel xitaa aan lagu soo gelin, caawa ciyaartii iyadoo maaragtay daqiiqado ka dhiman yihiin ayuu inta baxo xaafadii iska aad u dhahay inuu kala wado, hadaa meesha aniga aan la ciyaarsiyayn dheeli maayo waa ka tagaa. marka waxa aad wuxuu sameeyay in kooxdaada oo badinaysa maaragtay aad isxanaajiso, aniga ma la dheelsiiyo la yiraahdo kooxdaada maaragtay badiskeeda aan la dareen. Ronaldo waa lagu eedeeyay maaragtay wax fiican maahan, maaragtay inaad adiga nafsadaada kaliya ka fikirtid kooxda wax danta waa ka fikirin waa waxun. waa nin weyn oo maaragtay kubadda cagta ciyaaryahanka ugu fiicnaayo soo mara maaragtay u qalma ama muran ku jiro inuu yahay. marka inuu ficilkaas sameeyo iyadoo ciyaarnay yar ku dayanaya meesha joogaan oo maaragtay role model intaas ciyaarnay dunida iyo xitaa dadka kubadda cagta ciyaar role model u ah, inuu waxa sameeyo caawa lagu eedeeyay. laakiin who cares, macallin Ten Hag wuxuu muujiyay adeeg in waxa uu rabo uu sameynayo. waxaan ognahay in macallimiintii hore xitaa Luke Shaw maalin la wareysto uu sheegay, wuxuu dhahay macallinkan waxa uu macallimiintii hore uga duway waxaa kamid ah in qofkii aan ciyaareyn ama maaragtay bandhig fiican aan soo bandhigayn benchiga la gelinayo, qofkii dheelaana fursad la siinayo. taas wuxuu dhahay aan ku arki jiray macallimiintii hore. marka macallin Ten Hag isbedelka Manchester United uu ku keenay kamid tahay in ciyaaryahankii asagoo uusan rabin ama uusan u arkin inuu maaragtay bandhig fiican sameynayo oo kaydka gelin, xitaa rabitaan maaha ciyaaryahankii dheelaan uu dheelsiinayo, ciyaaryahankii ay ka jaban tahana maaragtay la leeyahay soo dhis oo maaragtay fursadaada haddii mar lagu siiyo 2 mar lagu siiyo oo mar lagu siiyo mar saddexaad lagu siinayo. marka ninkii Ronaldo ahay oo kulanka soo dhaafay aan ogeyn in lagu soo bilaabay gool ma uusan dhalin. waxa Rashford markii iyo asaga la isku qiimeeyo ay ku sii karaan runtii aad u kala duwan tahay. Ronaldo waa gool dhaliye waa la yaqaanaa, number 9 asaga ku fiican, laakiin waxa Rashford ku siinayo kuma sii karo. marka styleka macallinkan oo rabo la fiirsho kubadda in la raacdo. waxaan ognahay in Rashford caaws kubadda u raacanayo xitaa xilli ciyaartu dhamaan rabto 2-0 ciyaartu ahayd oo United iska baashaaleysay soo kubadda u raacanayo oo maaragtay uu ordayo arkayna. marka Ronaldo waxa iska helimaysid haddii aad kubadda raacana kooxdaada kale waxay siinay kalsooni in kubadda gadaalkaaga soo dhisto oo maaragtay fursado laga abuuro. marka macallin Ten Hag Ronaldo wuxuu sameeyay asaga shaqo kama leh, xitaa ciyaarta markay dhamaato waa la weydiiyo ma la hadashaa dhaho ma ku sheegay ima soo sheegay inuu dhahay, laakiin waxa sadda anigu maaragtay ku mashquulay hadda guushan ku mashquulsanay bariyan ka hadlayna. marka intii Ronaldo fursad sii lahay waxa u dhaantay inuu Elanga fursad siiyo. maxay Elanga waa nin soo kacayo, Ronaldo sanadkan waa ka tagaa, Elanga waa nin soo kacayo sanadka dambe hadda inuu ku shaqeysto laga yaabo. marka macallin Ten Hag isaga waxa lagu xisaabtamaa Ronaldo waqti ma siiyay cidna dhihimayso, laakiin kooxdan xagee gaarsiiday mise kulan badisay lagu xisaabtamaa at the end of the day. marka he doesn't care about Ronaldo iyo maaragtay waxa uu kala jecel yahay inuu baxay in kale. United taageerayaashada habal yaa leenahay ciyaar caadi soo bandhigeen, kulamo kale la dheeli doonaa bari iyo Arsenal iyadoo waxay dheeli doontaa Europa League. falaqeynteeda intaas ay kusoo koobaya saaxiibayaal. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. channelka doo subscribe ku saareen, subscribe ka dhac ku siiyo waa mahadsantahay.